ama aragti aan si toos u bartay markaas ay ugu horeysa aniga rajada la sheegayo wallahi marmarka qaar marka kaliya ahay ama aan arko waxa ka soo degay bajaajkaasi wiil dhalinyaro ah oo dheer oo dhar qurxoon watay oo labisan kaaga daran bajaajkana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Kaafiyo Xuriya halka diga daawanayso walaal macaan waa Hargal TV soo dhawaada channelkeena ku cusub tahay oo subscribe inoo saar hadii aad saaxiibadeena kamid tahay adiguna waxa ku leeyahay soo dhawo mar kale ciwaanka meesha ku qoran waxa bahan la yaabina la yaabiyay idin ku noqonin laga dareemo xaasha kulillah ilaa kama galataasi wax kale ma ahan waxa rabaa qisay yar oo aan la kulmay saddex berina madaxa uu xanuunayay ina idin la wadaago oo aan anagana dhalinyarada ina ka dhigin loo baahan yahay oo dhalinyarada inteeda kala isticmaashana arabno ina ka joojino intii xad tabarteena oo aan dadaalno si dhalinyaradaasi wadada ay u maleeyaan inay qurux badan tahay aan ugu leexinana waa ina anaga wacyigelin ama ka hortag in u sameeyna ilaa ayaan ka soo hanuuniyay waa galab qurux badan ee galabtaasi oo ma sha Allah ah oo dhankay aad ugu qurux badan waxaan meesha ku balansaneen qaar kamid ah saaxiibadeeda gaar ahaan gabar inagu qaali ah ayaan waxa rabnay in xogaa waqti kula qaadano oo ku soo dhaweeyna magaalada Muqdisho xeebta leedana waqti kula qaadano aniga waliba saaxiibo kale aad u salaam baayada hadda way daawanaysaa halka waqti lagu qaadano sawir lagu soo galay sidaas ay soo dhaweynteeda ku dhacaysa ayaa laay laakiin nasiib wanaag aniga waxaan noqday dadkii meesha ugu hortagay kadib markaan noqdo dadkii meesha ugu hortagay iyagu goobta dadkii ugu horeeyay ahaa waxaan sameeyay oo aan wacay saaxiibadeeni ama meesha ku balansanayna wacay idin aamay waa soo soconaa ay yiraahdeen marka anna meesha lagu balansanaa kuma degdeg karo orod kuma gali karo waxaan ahaa dadka oo badanaa xeebta leedahay tagaana waqtiga gaar tago oo aan ku badneen inta kale tan iska ilaalin jir ilaa waxa lahay dadka qaar wareeg ku soo gudbinaa marka xeebta leedahay waxa ka aaminsanaa wax oo nooc min ajabaan hada tagtay waabo biswaay ka aaminsanaa waqti laakiin qof waliba wuxuu u tago ayay ku xiran tahay marka aniga saaxiibadey marka waxay dhaheen ku soo dhawanahay in sug wax kale ma sameyn marka maamo meesha ku gadeysay oo markii liida la galay waa la ogyahay dadka dabaasha ee wax u aada yaqaanaani meel waxa jir sheex lagu gado jaakadaha oo lagu dabaashana laga kireystay jirto dharkan loo dhibtay mobilada waxyaabahaasi maamadii meesheeda waxa dhamaam kursi ku fadhiisan karaa hada sheex aweysa dhahno jawaabti ugu badneed oo ugu quruxda badan saalisi markaas waxaan dhahay sheex baa sheex cadaas Yusuf wali Allaaheen inta meel tagay wada ah inta fadhiistay sheex cadays ama sheex mandalbana waa iska ilaalin jiray inta badan waxa waaye si kale ilaahad laakiin maamadii markay sheex Yusufta sheexi aan caway dhaga iga shanaheesa ii daarneed sis anina aan cilo u dareemin saaxiibadeedana jid ku soo jirin aan u sugo heestiisa u dhageysanaya waxa meeshii soo istaagtay bajaaj qurux badan carafta ka soo carfeysana ay yaabaysid hees ka daarneed iyaduna kursiga ku fadhiyay gilgishay yani dhabaqa heesta oo kaliya heestaas aan waxa ka fahmay welcome soo dhawo leega fahmisleeno oga meesha fadhiya agteeda lagu soo baakintay waxa ka soo degay bajaajkaasi wiil dhalinyaro ah markaas wax xasuusta ana isla yaabo anuu ka qalas wax xasuusta ma laakiin ma sababta wiil dhalinyaro ah oo dheer oo dhar qurxoon watay oo labisan kaaga daran bajaajkana waxa ka soo carfeysa caraf nooc ugu dambeysay wiilka ilaahay qurux buu si ma sha Allah aaniyada ka dhamaan wax xasuusta bajaajkan ayuu aad u qurux badan bajaajada marka raacay waa kala leedahay teetale kala leedahay inta badan bajaajada raacay bajaaj inta iska raaco marka bajaajkaas waxay ahayd aniga dooqi ahaan aan raaci lahaa ay ahayd markuu wiil ka soo dagay meel horteeda intuu ku weys qaatay isla markii aan meesha wali fadhiyo waqti sheex ku caawiyay maqaayadeed to isla markii meesha ku weys qaatay oo wuxuu sameeyay wiilkii sali salaadu soo qabso uu tukay waana 10 saac iyo 40 meelaas ama ku qiyaasay saacada markaasi salaad casir oo markaasi waqtigeeda la sii dhaafayo ayuu degdeg ku tukaday wiilkii markii uu salaada casir degdeg ku tukaday kibacdi wiilkii sali ayuu la meel oo saaray ilaa maamada sheexa sali iska leedmaano hore isku kasayna
aqoon saas uma siinay laakiin gadaal dambe ka ogaan doonay marka wiilkii ilaahay amarkiis waxa uu soo qabsaday ana marka shiishad waxaasi waa ma maqli jiray bas leeno culmo ka hadlays waa maqlay dad caadi oo ka hadla waa maqlay waxay ka sameysanta waxaas dhan waa hahay yani history ahaan oo hahay laakiin muuqaal caadi oo leef ama aragti aan si toos u bartay markaas ay ugu horeysay aniga rajada la sheegayo wiilkii wuxuu soo qaatay dhalo ku tilmaamo afkoor inay ka tahay dabqaadka unsiga lagu shito kale afka dhuubka laakiin oo wax qurqurux kaliya bahal qurux kaliya oo daba dhuubaneen markaas oo yani dabadeeda saas u dhuubneed meesha dambana waxay ka bahal saas u wareegsan camalkeeda iyaduna qofkii arkay ama garanayo baashi markuu soo qabsado ka bacdi meel kamid malaha dhowr qaanadood miya ay kala leedahay meel kamid baashi shishadeed oo soo qabsada ama quuqa hasa u kadaysid ani siyaabo kala gedisan oo soo akhriyay historygeedana xoogaa ka soo akhriyay markuu soo qabsaday qayb kamid wuxuu ku shubay bac biyaha caafiyo kunka shilin la gado wadanka biyo caafi cajir ku shilin la gado maana oo xoogaa hal galaas camal qofka markuu oo qabto bacdas ku cabaaya biyaha soo qabtay meeshii ku shubay danna wuxuu soo qabsaday kartoon midabkiisa hadda si gaar uma sheegi karo ilaa markaas la igu horeys maano kartoonka soo qabsay kartoonka wuxuu ka soo bixiyay bahal gadguduud camal macquul in nooc kala gedisan leedahay laakiin ma ogi markuu baashi soo baxsaday ki bacdi meel kale ku shubay dhimbil dab soo qabsay maamay dabkeeda dababi oo dhibish dabka meel kale soo saar wuxuu soo qaatay ay babis waa babi dabkii ciyaw qax marka ana markaas intaas dhan waxa lagu sameeynaa waa horteeda laakiin reemadaal iska dhigaano wax kale reemadaal miska dhigayo tartiib aan wixii dhan ishu uga xado yani saas uma wada fiirina ama saas ma dhahoy si tartiib wixii u fiirsanayaa waxaan ku mashquulsanahay mobilkay gacanta oo heestii iga daarneed markaas anina heesteeda iska sii dhigaysanay danna wiilkan ishaan ku sii xaday inta badan wuxuu sameynayo mana fahamsaneen markaas aqoon si fiican ama inay shiishada la sheegaa tahay aqoon uma lahayn laakiin wiilkii si gaar ah u fiirinaya aniga dabkii markuu qaxay kadib baashi soo qaatay isla bajaajka carafta badneed ee heesta ka daarneed oo laakiin markuu ku soo degay heesta uu damiyay oo dhex galay ileen gudaha bajaajka daaha ka deesan oo shabaq leh gudahan waxa ku sii jira wiil kale ku sii jira isagana aan markaas ma aanan arkin laakiin wiilkan ma sha Allah aan dhahay ayaa gudaha ka soo baxay marka gudaha markuu wiilkii galay ambarmiga ku jireen ani hal mar ilaa meel dabeel wuxuuga dhabaqa badda ay ku soo gaarayso kaal iska arag fadhiimahano marka waxa isla markii xanuuna madaxa gabadhii faraxsaneed ee saaxiibtii soo dhaweynayay ee asxaabteedu suugaysay ma iiba aan madaxa qaaci dhahan madaxa markuu xanuunay saaid markuu madaxa xanuunay anna waxa sameeyay heestii ii daarneed iska damiyay ilaa meel markaas laga jiray iyo madax xanuunkan degdeg wixii kan war umeen maahno heestii markaa damiyay kadibna quraan iska akhristay oo cudubleystay ilaa iska bariyay saaxiibaday wali sida u sugan ana mobile ku waca inta soo mareysay waa socona inta soo mareysay waa sidii isku kala hageena marka ana waqti hore meesha tagaba inta badan casharada la soo siiyaa balanta in la dhowro waqtigeeda meesha lagu tagaa aheed marka anta saas waqti ciyo u tago meesha u ilaalinaa waqtiga madaxii sidoo ii xanuunay dabeeshan ay socoto qurux kaliya badana caawdiisa ay soo gaaraysa intaas macnaa waxay ahayd wax qurux badan ay ahayd laakiin waa laga soo dhaxgal maahano madax xanuunkii kadib bajaajkiina agteeda taala sida hore idin kugu sheegaba dabeeshii ay maatay darteed waxay sameysay bajaajka shabaq lahayd saan u bitisay saan markay u bitisay bajaajkii ee shabaqeeda isheedu waxay qabatay tuubo dheer oo afkii wiilkii quruxda badnaa maasha Allah ka soo baxayso iyo qaac badan wiilka loo soo dhiibaayo ana hal mara dhac wasiiq raxay madax xanuunku waa ka sii dar abo wiilkan quruxda badan leh oo saan ani ma sheey yaabinhe yaabkiisa an ma yaabin marka anina
reemagaan nuucii ugu dambeeyay iska dhigay hal inaan ku xadaya mugtay ilaa saan hada qof u wada fiirisid xoogaa qofku wuxuu leeyahay qofkan waxay tahay inta laga keenay macnaa adduunyada ma la socod meeyo dadku intaan wax ugu fiirinay dadka qaar waxaas la yaab malalo laakiin qofkii ku cusbaa markaas oo kale ani camal waxay la noqonaysa wax lama filaan marka wiilkii markuu wixii arkay wiilka qurxoonaa shaqaysanaya bajaajka watay salaada tukanayo hadana daqiiqada kadib shiishadaas waxaa la sheegaa inta badan hadii halka mar oo dhuuqdid inay la mid tahay adoo baakad sigaar cabay ay la mid tahay aad ugu naxani marka quruxdiisa shaqadii salaadii uu tukanayay uu shaqaysanayay intaas marka arkaan lama filaan ila noqotay yani sawuu jinaan subhanaka ya cadiim kaafi adma wal ma sawaala waalan yahay asla marmarka qaar waalaya marka aniga intaas la yaaban wiilka quruxdiisa shaqadu shaqaysanay qaf salaad tukana inuu ahaa iyo waliba intaas dhanba anoo la yaabanba hal mar qura waxaa niyadeeda faraq ka soo dhahay erayo ilaa hadda meel ka iman aan aqoonin aan abwaami ihi dad wax tareemi hal abuur gaar oo kaafi waa balaagas gacabta dhahay malihi marka erayadaas laakiin loo fiiriyo waxay ka turjumaysay qaabka aniga wax u arkay oo u maleynaa iyo qaabka say noqdeen ayay ka turjumaysaa marka waxaa jeclahay inaan erayadaas aan idin wadaago abwaami iyo mar waliba waan idin sheegaa abwaami iyo laakiin marka wax arko kale xanaaqo kale xawaaye laba xaraf saddex xaraf isku aadina waadis wax la yaqaan erayadaas wiilkii anoo dareen ahaan ka turjumaa dareenkii ka turjumaayo waxaan iri oo mar qore la soo booday markaan dhaayaha saaran baa dhalaalay dhirir iyo dhaaya la dhugtaa buu dhigiis ku dhaafay markaan dhugtay baa dharag la dheelmiyay anigoo dhabada fadhiyo buu dheeldheel ii daymooday aan sadamaceygii dib u celiyay kolkaan eegay baan arkay afkii ifaayay oo qaac xumbinaaye xaashaa kulilaahi xamaasad baa iqaado xanaaq baa xabadkaygii xiray xagga iyo xagga baa u xaluusho xabad kalaba maan xurmeenin dadka qaar markaa ugu sheekeeyay arrintan waxay igu tilmaamaan inaa xoogaa liigu taraaraxay intii fahmi kartay wallaahi marmarka qaar markaa kaliya ahay ama aan arko wiil sidiisoo kale waxaa waaye asagaa soo xasuusanaa liannaha warqafta qaf shaqaysanayo salaadiisa ka adag maxaa dhahay heebadii qurux ilaahay siiyay oo haddana balwad ku darsaday ilaahay amarkiis ilaahay horta dhalinyaradeenna intooda badan hadda waxaa waaye baash waa lagu wada yaacay ilaaha naga madoobeeyay adduunyada ilaahay waxyaabaha ugu necbahay ayay qayb ka tahay qof balwad leh inaa la saaxiibo walaal ka dhigto wax ina dhex maraan saaxiibo badana marka xoogaa arkay inay xoogaa baasho ku taraaraxeen dhalinyaradu waxay u maleeyaanba nacfi iyagu ka maqan haddayna la isticmaalin anna markaas marka arkay xoogaa gees ka maray laana qofkan balwada leh isticmaalada saaxiibka dhigtid soo dhaweysatid bari kamaan adiguna wadadiisii ayaa raacayda oo meelnana ugu maleexanaysid aad u mahadsantiin oo ku mahadsantiin daawashada muuqaalkan haddii aad jeceshahay inaan qisooyinka badana ama arimaha aan la kulmo arimaha bulshada ku saabsan inaan idiin soo gudbiyana qaybtoose commentiga dhac inoogu si muuqaalkan dhalinyaro fara badan uu u gaaro ee ugu waana qaataan ee u joojiyaan balwadana like-ta naga iloowina like-ta markii la baasha like la saaro YouTube dad badan ay gaarsiinay moogtahay marka like-ta dhac iskaga sii aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aniga balwad waa iga mamnuuc dhankayga adiguna intii aad taqaanid sii gaarsii ilaahayna ha naga wada madoobeeyo